mu'asasada karam ee fidinta dacwadda islaamka ayaa munaasabad ballaaran oo xidhitaana waxay u samaysay tababar ay u qabatay culimada gobolka Tugdheer ee khudbadaha ka gala masaajidada kala duwan ee ku yaala magaalada Burco. tababarkan oo ujeedadiisu ahayd kor u qaadida aqoonta khudbada masaajidada iyo sidoo kale diyaarinta togan ee khudbadaha ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Tugdheer, badiba culimadiinta gobolka Tugdheer, madax dhaqameed iyo sidoo kale culimadiintan loo soo gabagabeeyay tababarka. ugu horeyntii Sheekh Cabdibaasid Cabdinuur Xaaji Ismaaciil oo ah gudoomiyaha mu'asasada Karam ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarkan muddadii uu socday sidoo kale ujeedooyinka ay ka lahaayeen intaba. mu'asasatul Karam lidacwati wa tanmiya inay tahay mu'asasad camlaaq ah oo dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jirta, hawlaha ay ku fogan tahay ay laba qodob yihiin arrimaha dacwadda iyo faafinta dacwadda islaamka iyo baahida bulshada, ama haday noqoto tababaro, haday noqoto mucaawidoni iyo dhismayaasha awqaafta iyo masaajidada iyo ceelasha wixii la midka ah. inaga waxaan u maleynayaa malaha xagga tanmiyada bashariya ama kubcinta bulshada waxyaalaha tababarka iyo thaqaafada iyo ayuun baynu ka aragnaaba suurtagal ah, laakiin barnaamijyada laftirkeeda waa ku fooganta waa qabataa. ujeedada aynu ka lahayn dowladan waxay ahayd saddex qodob, laba qodobna waxay noqdeen maxsuulkii ka soo baxay. ujeedada aynu ka lahayn waxay ahayd in kor loo qaado aqoonta iyo kafaa'ada uu leeyahay qofka khatiibka ah ee mujtamaca iyo bulshada hor istaagaya. waa hadaf iyo ujeedada ay mu'asasadu ka lahayd in kor loo qaado kafaa'ada ay leeyihiin dadka khudabada ah. qodobka labaad ama ujeedada labaad aynu ka lahayd waxay ahayd in la isku xiro dadka khudabada ah. waa ogtihiin intii imika khudabada waa la isku xiray nambaradiina magacyadooda mid walba masaajidka uu ka khudbadeeyo. marka maanta loo baahdo mowduuc kamid ah mowduucyada muhiimka ah ee gobolka ka jira in laga hadlo dadka lagu wacyi geliyo, waxa markaa inoo fududaanaysa in si fudud la isu gaarsiiyo oo looga qaato. cidda bulshada hor istaagaysa mar walba ay noqoto dad xul ah ay noqdaan oo xisan doona. runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa tiimkii soo abaabulay tanfiidka mu'asasada ka mid ah. waxaa kaloo mahad iskale jaamacatu najaax iyaduna marti qaaday oo marti gelisay mashaayikhda iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo maamulka gobolka iyaguna inagala soo qayb galay, iyaguna aad iyo aad buu mahadsan yihiin. geesta kale waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah culimadiinta gobolka Tugdheer iyo madax dhaqameedka gobolkani, waxaana mu'asasada Karam ku bogaadiyeen dadaalada ay ku jirto fidinta dacwadda islaamka iyo sidoo kale kor u qaadida aqoonta culimada gobolka Tugdheer. iyo aad bay waxay u yihiin meel ummadda danaheeda caamka diinteeda duruufaha soo wajahaya ee maalinba ku taagan waa meeshii laga qaban lahaa ee laga sixi lahaa. marka kor in loo qaado bay la tahay. talooyin ahaana kuwaasan soo jeedinaya in la soo celceliyo dowladdan oo kale, in magaaladu isla hesho oo khudabada maca ikhtilaafi itijaahaatihim wa adyaafihim in macnaha runtii la isla helo, waayo wadan caam ah oo danaha caanka la isla helaa waa shay aad iyo aad u daruuri ah. dowladani ha soo noqnoqoto, taladani ha soo noqnoqoto, tawjiihaadku ha soo noqnoqdaan. arrinkan yaan la masqaraysanin. ummadda dhan ee muslimiinta meesha laga hagaya waa masaajidkee, yaan la fududaysan. waxaan ku talinayaa waaqiciyan way noqotay khudbadu waaqaca maanta taagan, xaaladda taagan waa inaad ka hadlirta. waliba aad waxaan u xiisayn lahaa runtii in had iyo jeer waxyaabaha caamka ah ee bulshadu maadaama Burco kale waa isku wada duruuf wey, wixii ku soo kordhaa khayr iyo shar labadaba waa saameynayaan. in khudabka intii suuragal ah hadii la midayn karo la midayo. waanu mahad celinaynaa qoladan mu'asasatul Karam oo dowladan soo qaban qaabisay oo qabatay. waxaanu leenahay waliba iyagana waxaan ku sii tawjiihinaynaa inay siina badiyaan dadka waxa ugu sharaf badan waxa weeye inta masaajidada soo camirta ee soo gasha, waayo waa mu'miniintii ayaa soo gashay masaajidada. waxay marti kaaga yihiinna waxa weeyaan wixii martida looga ahaa ambiyada ayaa marti lagaaga yahay. khudabada ama dhalintan halkan lagu tababarayay dhalintii masaajidada hoggaanka ka ahayda iyo mu'asasadii hawshan soo qabanqaabisay mu'asasatul Karam intaba waa u mahad celinayaa. kaliya wuxuun baan leeyahay anigu waan idin ducaynaa, khayr badan baan idin rajaynaynaa. ugu dambeyntii hadaladii halkaasi laga soo jeedinayay waxaa soo afmaray gudoomiye ku-xigeenka gobolka Tugdheer oo tilmaamay inuu ku faraxsanayay ka soo qaybgalitaanka munaasabadan. gudoomiyaha ayaa dardaaran u soo jeediyay culimadan la tababaray. mu'asasatul Karam oo runtii barnaamijkan wax ku oolka ah
soo diyaarisay isku soo dubariday runtii muhiimadda ay leedahayna halkan wax badan ka bixisay culimadana aad baan ugu mahadcelinay iyagana naseexada iyo dardaaranka ay jeediyeen iyaguna iyo cuqaashuba iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo dowladan qiimaha badan ee khudabada lagu dhiirigelinayay ama lagu tawjiihinayay ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey culimadan kala duwan ee ka faa'iidaysatay tababarkani iyo isku soo wada xooriyo muwaasada karam ee fidinta dacwadda islaamka ayaa dadaalo xoogan ugu jirta kor u qaadidda aqoonta iyo fidinta diinta intaba waa Khalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta Star TV Burco.